Ku soo dhawaada barnaamij kale oo xiiso leh. Maanta waxaynu u safri doonaa dalka Filibiin, gaar ahaan caasimadda Manila. Halkan waxaad ku aragtaa mid ka mid ah waddooyinka ugu saxmadda badan magaalada. Laakiin ma og tahay waxa ka jira lugahaaga hoostooda? In ka badan 100 qoys ayaa ku nool godad loogu talagalay in biyuhu maraan oo ku yaala waddada highwayga hoostiisa. Waa nolol adag oo khatar badan, balse leh sheekooyin la yaab leh. Markaad gudaha u gasho tunnelka, waxa kugu soo dhowaynaya kulayl, cidhiidhi iyo mugdi. Halkan waxaan kula kulmaynaa Ella, waa hooyo 2 carruur ah ku korinaysa godka dhexdiisa. Ella halkan ayay ku dhalatay, halkan ayaana u ah hoy. Musqusha ay isticmaalaan waa mid guud oo dhammaantood ka dhexaysa. Nadaafad darradu waa mid heerkeedu sarreeyo, laakiin hooyooyinkani ma haystaan doorasho kale. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu naxdinta badan ayaa ah in godkan uu ka sarreeyo highwayga. Mar kasta oo baabuur weyni soo maro, qolka oo dhammi waa uu ruxmaa. Filibiin waa waddan ay ku badan yihiin duufaanada iyo roobabka waaweyn. Marka roobku yimaado, tunnelkan wuxuu noqdaa meel lagu dhinto. Biyaha ayaa soo buuxiya ilaa saqafka sare, dadkuna waxay ku khasban yihiin inay carruurtooda iyo agabkooda la baxsadaan. Sidoo kale, u fiirso fiilooyinka korontada. Waa kuwo si khatar ah isugu dhex yaacsan, kuwaas oo sababi kara dab ama inuu korontadu qofka qabsato. Dhab ahaantii, waa nolol maalin kasta aad u dhiman karto. Halkan waxaan kula kulmaynaa Lola, waa haweenay 83 jir ah, oo halkan ku noolayd muddo aad u dheer. Waana qofka ugu weyn bulshadan. In kasta oo ay halkan ku jirto, Lola wejigeeda kama maqna dhoola cadaynta. Tani waxay ku tusaysaa adkaysiga iyo samirka dadka Filibiin. Waxay sheegtay in carruurteeda iyo kuwa ay ayeeyada u tahay ay yihiin waxa kaliya ee ay u nooshahay. In kasta oo ay dhibaatadu badan tahay, haddana dadku waa kuwo isjecel oo iscaawiya. Ugu dambayntii, YouTuberka Drew Binsky iyo xaaskiisa waxay go'aansadeen inay dadkan caawiyaan, iyagoo u iibiyey bariis, cunto iyo hadiyado carruurta loogu talagalay. In kasta oo caawinaadaasi aysan noloshooda beddelayn, haddana waxay u ahayd maalin farxad leh. Manila waa magaalo qurux badan, laakiin nolosha hoostaal highwayga waxay noo sheegaysaa in dunidu aysan sinayn. Maxay kula tahay nolosha dadkan? Noogu soo qor fikirkaaga. Ha ilaawin inaad like iyo subscribe dhahdo. Mahadsanidin.